deegaan ahaan markii la degan yahay deegaanka sidii la ii sheegay inaan daba kaca maaha koonatare beesha ee iskale inta qabiiloo la degin waa walaale ayagoo isla noola daraad ay ku hadleen media ay ku hadleen oo ay dhaheen garba qolley anaga iskale garba qolleyda waqlasheedi siday ku baxday intaan la annaga markay koonatare tahay tawdan intaan la degin ummad ilaahay oo dhamac baysan mustamac magacay waa qaasim haaji waxaan meeshaan iskugu imaanay fariin oo na soo gaartay dadkan walaalaheena waa reer Shirmoog aan deriska nahay fariin naga soo gaartay aan jawaab inaan ka bixin rabnaa fariintaas oo daraad ay ku hadleen media ay ku hadleen oo ay dhaheen garba qolley anaga iskale garba qolleyna koonatare dhamaale inay leedahay aan u qabnaa ayagana waxay hadda conference ku sheegeen garba qolley anaga iskale garba qolleyna waxaa degan waraabiyaa nala degan Shirmoogaa degan Leysaana degan Murulaa degan Dagoodiyaa degan reer Awaasana degan reer Awkutubaa degan waxaan deganeen ma jiraan arrintaasana soo kicisay inaan xaq aan ahayn oo aragday dirisnimo aan ku jirin aan na soo kicisay dadka walaalaheen waxa u sheegaynaa sa ayaga nooga dhonyin anaga uguma dhonyin walaalan nahay dirisana intaas qarna isku dhax noolnahay warkaasana dhibay warkaasana soo kiciyay waxa way raaligelin haday walaalnimo ay jirto raaligelin inay ka bixiyaan rabnaa raaligelin haday ay ka bixin waayaan wixii deegaamadan galaaliyo iyo dhaxadan iyo xiriir hoosla dhaxadooda ku dhaca iyaga dhibkooda ay keeneen dhibkaasna waxaan ugu digaynaa walaalaheen inay raaligelin ay ka bixiyaan anaga ma dhihin antaas sanaa meesha adeerada hadda taariikhda ay ka hadlayeen ilaa bibwan ilaa wargadu dhaxadooda nin Leysaana hukuma jiray koonatare ah wiligooda lama sheegin meeshaan anaa laguma sheegin garba qolley ninka Bakri jibiyey oo lagu bilaabay gaasadka lagu soo qoray waa Leysaanu ahaa aadan maxamed waa Bashaar al'aana laguma sheegin nin asaga dulmay gacantiis ku dulmay dadka walaalahan nala degan waxaan ka codsanaynaa warka soo yeeri dhig walaalaan ku fiicneen oo keligood isku reebeen qalaaliyo iyo intaan dhaxadood anaga isfiigo iyo garba qolley anaga iskale ay dhaheen warkaasaan daba soconaa warkaas uma qalmo walaalaheen dad u qalmo ma aha dadka warkaasna dada wada dadka wadan ha ka waanto weyn walaal yaa la isku dirin dadka dirisal yahay dadka walaalka ee warkaas wadana dadka walaalka dhax keenay fasnadaas ay dhax keeneen ka waanti waan leenahay ani magacaydu halla aadan Cabdiraxmaan Xasan adiiro ku magac dheerahay oday garba qolley ayaan ka mid ahay koonatare beesha Leysaamada gaar ahaan sidaas markay tahay maanta waxaan warbixinteeda idin siinayaa garba qolleyda waqlasheedi siday ku baxday intaan la degin settlementiga hortiisii waa dowbiyeed meel dow eed garba qolley haddaad maqashaan daaqe burkus iyo webigan dhaxdooda meel dow meeshaan ka jirta libaaxiya in meeshaan dhaxdooda meel dow meeshaan waxa ka jirta inta ka jirtay la sheego Hussein Hareed Arabiya inta dhaxdooda dow meeshaan ka jirtay sidaas awgeed dadkii daaqsatay reer Mandela abaara hoolahooda meeshii ayaa eelishaan ilaahay nagu siiyo ayaa lagu qodanay nin walba eel buu qodanay xoolihiis daraadeed afka boord maxaa lagu garba qolley hadalla waa garabkii biyaha yaray biyo badan ma ay leen eelisheedu waa shallow wells sida awgeed waa dhul cosmopolitan koonatare baa iskale dhulka ilaahay ka suq nin lagu haystina ma lahayn dawdina waa cosmopolitan ya dawd qabiil aan wax ku lahayn marixaan labaas ku leeyay laba eelahan allan Soomaali daaq maama bi nolosh ma nafta ma leh biyo naftu waa biyo nolosh waa caana leh murla garra Dagoodi
كونا تريبت شبيل أجار كان عندي جن إجواوين ويبقى أسوأ ديجان حتى من حلال ألا يقوليه أنت كالورك وضاف كامل بيقوليه كويل هارتي ورسنجلي مجرتين بالعت شلة قبيلة لمن الكوين ماله من ميل كوسموبيليتي أمس ميل قف نيكو كيري شيئا كروي مركان settlement markuu deegaan ahaan markii meeshan la soo degay ligaasiyad ilaahay noo soo arfay chiefku ugu horreeyay ba liisaan u ahaa aadan maxamed ibraahim bishaarna waa ku magac dheeri muddadiisii uma malaynay qolo gaar ahaaneedan noo bartilmaamaystay ama meeshan wax sheegtay anigaa leh dulmi sheegan kara ma as jirin waxaan u malaynaa hadda markaan waa ku taariikhaystaa dow garboqoley limada lama arkaayo laleeyahay history ahaan inta dhig meesha ida badax ka ah midigteedii markada ali salaad liisaanna ma ahayn shirmoogana ma ahayn waad ogtihiin reer mandheera waa garanaya murlu ah nin murlaas ahay malkadana waa waqlasheedi waxaan ugu haysta miyaa jir walaal baana derisaan ahayn وسوينا اللواكن وآذن هرسي مركو كاني مرلو ماشي كوك داوة دسوق بالله مرلو نقوم هايسين كون تريب أسكالي شيف عن لحاشات دي دول نقطنا خيرا وحسنا عليه نعم ده ماشي أنا بقرأ في الليستي أو ده هذي كرو الرهابس سانك بكارة إلى كومجرين شلمو أردو هذه جيدة هذا سومرتين أو جرين كاونتي ميلا أنت كسو جرت مايكوريبي بيري كوما جايز حروب جيل فيغو شلمو عليه أيه كل مديت كل وربعين تبغى يكون جرتان مالين مديت قط يكون جرتان مالين كليب كاس كمور ليسان أنتوا كمور ليسان واكس فريق كوركيد واي قبري ورابي يا يجر قبري الشيخاش الله استدري عن كلامك ما أركين هذا كور مهلي لا بروح عوضت محرمنا دولة اللباس أولكاس أول ياي نقولها جاجيني وقت كس any time وحباد إيه كارد وبقص وعبسيان قمنانك دولة ده أرنتاس كساعات أي واحد عن أي ذاك جوابيس لكن بندر representative كه أو county commissioner وين واش يعنيك his chief كيسا كدم بي أرنتان كلاشيس أو لما قبيل ده دوت كده عايزين chief أي وضع ويوجين دولة وقت أنا كان هذا نقصه بالله ما أقولين فعلك منهن عد إذن وحنفرها ولا ليها شيء ده إن أي رجال قلين أنا كبيان أولك أي ناس وتعبان أنا قبيل أنت قبيل سومالي الدرس ولا راح ينوي واحد باتاك شيء جنين ماله وها أنا هنتوض مقولتي ده أنا شيء جنين قار أنا ونقول كلفيني ماله فعلك منهن medical government institutions are here the chief كنفتيسي water point kiosk قربقول إليه قرقي مساكين تلوديس قول كان فين مساكين تلوديس أنا أساسا اللي يقوليسي أسا قاتي وحانو كوديستي ما تاسجل وجلس كيوسكي جالس كوديستي دقيقة سنة كوشري chief ولا فين ولا كوشري سبب لقمة بهناي اسبتالك انستيشن ولا دقين سكول اريا هذنا ولا سو دقي dhulkii asaa ootay dadkii marka anta deegaan arki may deegaan ninkii institution digitaasa ku kalaftay hadana marka saas ay tahay saala malaliyo
maan hore wasiirka is the wasiir government is my minister habeen koor tireen ma haystaa is my brother aniga xuquuqdaan waxaan kula doonaynay waa way asigaas qori horinaas ka qori gadaalnaas ka qori public land markaas dhahay Kenya constitution aan ku jirin public land yaanu daaweynay aniga markaan dawladda u daaweynay Soomaa kursiyaas daraad baa Xuseen ku fadhiya adana asaa ku fadhi birin ninka ku fadhiisina is not belong heritage ma aha markaan aniga aan qorni inaas asaga qabiilaas noo taaba waa laga fiican ha ka fiirsada meeshaan dhibka yaala waa culus dawladda inay ogaato ayaan u baahnay maxaa yeelay waxaan weli aan la arkin baa meeshaan ka soo baxay oo dhib ah hadhowna hadduu dhib dhaca dawladdan ay ogeyn waa xunta annaga markay koona tareef tahay dawdan intaana la degin ummad ilaahay oo dhamma cabaysa mastamac ummaddii ayada ahayd wax dhibe yaali ma lahayn hadda dhib culus ayaa soo baxay meeshaan adi cag ma saari kartid waa lagaa kicinaya hadhow markaad martan waa xidhanta dhibkaas ayaa jira meel kasta oo ma dawladdu xisaabnayn ummadaa degan ummad yaa degan meesha ani karoo dhexooda karoo inta jiif ninkoona tareebaa jiifka ahay waa siduu ninkan sheegay dhib ma jirin qabiilna ma jirin soomaalida waa isdhex taagnay hadda arrinta iyada ma jirto karoo niman shaaqaale yaa jiifaf ka ahay wax dhib wuxuu ka socdo weligay ma maqlin laakiin cidaa hadda mana sheegato annaga hale leh niman reer xasana karoo yaa degan oo jiifaf ah waana koona tareeb marka qaas ahaan annaga oo hadda meeshaan deegaanka joogno wax badan baan fiirinay ummadda aan la degannahay nimankii madaxdana wax baa dhib nagu hay tilaabo ma qaadi karta adi tilaabadaad qaadda waa lagu dhaqaaqay marka arrinta jirta tan weeye haddii tilaabo aad qaadda haddii lagu dhaqaaqay adi bini aadan baa tahay maxaad noqon hadhow meesha dhib xun ayaa imaanaya daraada ugu dambaysa subaxi waa nalagu soo duulay anaga qoryaalka dawladda nalagu soo duulay wakaase waxaad samayntayn la samaynaya ilaahay caymi ridi marka dhibkaasaa yaala anigu war ma badin haya waxaan ka cabanaya jiifta niman masalaanba dhibka ay wadaan maxaa yeelay ninka hadduuba dilkaada u taagan yahay maxaad samaynaysaa ya ima masalay ani qofka oona degaankii aad joogto uuna kugu imaaday is isla degteen ummadda kaloo Soomaaliya wax ka sheeganayna ma jiro marka arrinta jirta tan weeye ee dawladda waxaan u sheegaynaa in aan dhib hadduu dhaca ay moogid u qabin oo nimankaan ay dhibkana ayaga ka dambeeyaan qof meel ku kaadin kara uu jirin dhulka dhanna ayagu u xiran yahay waa u xiran yahay dhulka qofku markuu joogo intuu degaayo marka macirkuu degi deegaan ahaan markii la degan yahay deegaanka sidii la iin sheegay inaan daba kaca maaha koona tare beesha ee iskale inta qabiiloo la degin waa walaale ayagoo isla noola laakiin waxaan codsi ahaan dawladdu u jeedsanayaa nimanka hadda responsible-ka noo ama madaxda noo horaan way noo soo dhibeen oo dhibaa nugula hay dhibkan 30 sano ninka hadda ritaaya qaadanaya ku jiro saan unbaa waxa way lugtuna noo saaray odayaasha noo raabeen dhalinyarada markaana anigaan in la hadlaaya hadda deegaanka ninka u dhashay ku nool iskuulkan primary-ga dhameeyay
khalaaliyow ka soo dhamay secondary 2019 kiana 2015 inta ka dhamay lin deegaankii ku dhashay oo inta ku nool ayaana dhalinyaro ahaan markiina la dhaha halkii odin noo xarbiyo noo dagaalamano garab taagan mar walbo waa kan odigan musay aadan waa khayr Allah siiyo waxaanu noo dulminayno dulun maba yareene qabiil ma leen anaga dhalinyaro markaan dhahno laan dhigi dhanba waxaa laga dhigay wax lagu kala tagay ee wax kala hadda tilaabo dhaqaajisan waxaa lagu leeyahay forum aan nagala dhigay forumkana dadka naga dhigay eldaskeena maha waa dadka responsible ku nooha dawladda noo dooratay oo madaxdeen aha waayo waxay nooga dhigaan forumna maraan badamacay inaan dhalinyaradaydu kusto aan tago maaragtahay xafisaha macalliyowga dhisiga aan u tago kibaandha intaan qaadno meesha iska tuur maxaa u sababtoo forumka waxaa nolol dhigay deegaanka aniga aan ku goosanay odayaashii mas-uuliyiinta noo gooyeen haddayna garan waayeen oo ina dhaheen ima garanayno I don't know meel anaga aan u bixayno ma baqaan anaga taasna waxaa keenay oo sababta keentay waxaa waayo sheekada hoosaa laga wadaa oo sidii hod orange odayaasha sheegeen maanta deegaanka aad ku dhalatay hadda meeshiida wax ku baratood ku weynaatid meeshiida aad ku guursaniyo degi meeshiida settlement ku hagaajini khaasatan anaga dhalinyarada aan nahnay taas been maaha dawladda waxaan ka codsanayaa national government iyo waxaa waaye county government executive dhammaantood horta inay noo imaadaan wixii jiro qarboqole ahaan annaga afka annaga dhalinyaro annagaa qabo annaga le haddaan lee waa qaldantii leeyihin dhalinyaraydu way joogaan annaga horta saasaan u dulunsannahay tan labaad taas xaggaan ugu gudbaya dhalinyaro dhanaa codkaas u jeedinaya tan labaad deegaanka aan degannahay dulunka jiro dadkoo dhan ma wadaan mas-uuliyiinta wadee dawladda limankaas ha naga qabato hadday naga qaban wayso anaga responsible ahaan nama anfacayin mana mathali doonaan wixii meesha ka dhacayna dawladda haddaba codsayn waa gudbinay hadday tixgelin ways biri wixii ka dhacay iidan waxaa waaye aydaa ka jawaab ka bixin kwa ajili hiyo serikali tunaomba serikali ama national government ama county commissioner ama county government tunaomba yoyote ambayo wanasikia hiyo maneno ambayo wazee walisema na mimi pia nasema sahihi, especially mimi naongea sahihi kwa jina mimi naitwa Abdinasir Muhammad Ibrahim. Baba yangu alikuwa zamani the first senior chief in Mandera. Na sahihi mahali tunaongea ambayo hiyo watu sisi tunasema wanatutisha na hiyo crown yao, especially hiyo chief mzee alikuwa anasema mbele yake ndugu yangu ambayo tuko same father ndio alikuwa first senior chief ya Garbagoley na anaitwa Adhan Muhammad Ibrahim, well known by Bishar. Kwa ajili hiyo wakati alikuwa senior chief ya hii ardhi, hakuna mtu ama hakuna mtu alikuwa anatishwa ama ambaye alikuwa anasumbuliwa. Kwa ajili hiyo hakuna hii ardhi vile ndugu yangu Aden Yero alisema ni ardhi ya Kona Terep ya kila mtu. Sisi tunataka amani na usalama ambayo vile zamani tulikuwa tunaishi pamoja, ndio mambo ikuwe salama